isagu waa mid afgaaban, jamaahiirtiisuna waxay ku doodaan isaga waa mucjisada kubadda cagta, may isaga ma ahan bini aadan, may isagu waa sixirka kubadda cagta, may isagu waa abid midkii ugu wanaagsanaa kubadda cagta. maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagayaa guusha sheekada mucjisada kubadda cagta Lionel Andres Messi. Lionel Andres Messi waxa uu dunida ku soo biiray sanadii 1987. waxa uu ku dhashay caasimadda waddanka Argentina ee Rosario. qoyskiisu waxay ahaayeen kuwo faqiir ah. aabihii waxa uu ka shaqaynayay warshad, hooyadiina waxay ahayd mid ka shaqaysa nadaafad ama booyaas. Leo waxa uu ahaa mid aad u jecel kubadda cagta, riyadiisuna waxay ahayd inuu noqdo xirfadle kubadda cagta una ciyaaro kooxaha ugu weyn dunida. Leo markii uu jiray da'da 5 jirka ah waxa uu ku biiray koox yar oo aabihii macallin u ahaa, wuxuuna uga sii wareegay koox kale oo lagu magacaabo Newell's Old Boys Club markii uu jiray da'da 8 jirka ah. Leo markii uu gaaray da'da 11 waxaa ku soo booday xanuun kaasoo lama filaan ku noqday dhammaan familka. Leo markii ay isbitaalka loo waday oo baaris lagu sameeyay ayaa waalidkiis loo sheegay in wiilkooda ku dhacay cudur ah hormoonka koritaanka, waxaana loo sheegay in wiilkoodu aanan jir ahaan sidii la rabay u koraynin, balse ay jirto daawo la rabo inuu qaato bil walba, qiimaheeduna yahay 900. daawada oo 900. Leo markii uu maqlay arrinta isaga oo wiil yar ah ayuu aabihii ku dhahay, hadda kubadda cagta ma ciyaaray miya? lacagta daawada Leo familkiisa ma awoodin. aabihii waxa uu isku dayay inuu la xiriiro una bandhigo koox ka dhisan waddanka Argentina oo lagu magacaabo River Plate FC, balse naadiga way diiday inay bixiso lacagta daawada bil walba. muhiibada Leo ma ahayn mid qarsoon karto, waayo waxa uu ahaa mid xirfadiisu aad u sareyso. Leo aabihii ayaa bilaabay inuu la xiriiro nin ay qaraabo yihiin oo ku sugnaa waddanka Spain una sheegay marxaladda wiilkiisa. ninkii ayaa u imaaday Leo aabihii, waxayna tuseen muuqaal cajalada oo Leo kubadda dheelayo, waana ku qancay. wuxuuna bilaabay inuu la xiriiro naadiga Barcelona ee ka dhisan dalka Spain, waxayna soo direen koox baarayaal ah si ay u qiimeeyaan wiilka yar oo mucjisada ah. kooxdii way la cajabeen sida uu ciyaarayo kubadda cagta, wayna qanceen. intaas kadib waxaa bilowday in Leo loo wado dalka Spain, gaar ahaan magaalada Barcelona, si ay hawsha loo dhammaystiro loona daaweeyo. isfahan heshiis iyo shuruudaha Leo familkiisa kadib waxaa la isku afgartay heshiiska iyo shuruudaha Leo reerkiisa. mucjisadu waxa ay ka bilaabatay in heshiiskii xitaa ay warqad waqti loo waayay oo tiish lagu qoray heshiiska la isku fahmay, waayo Leo reerkiisu waxay helayeen dalabyo badan oo iridda u taagan. halkaas waxaa ka bilowday safarkii Leo Messi iyo kooxda Barcelona, waxayna ku dareen kooxda B ee Barcelona. cunugii isaga oo yaray ku dhacay cudurka waxa uu noqday midka ugu wanaagsan kubadda cagta. waxa uu xaqiijiyay riyadiisii ahayd jaceylka uu u qabo kubadda cagta, waxa uuna gaaray meel ay qof kale soo gaari karin. Leo waxa uu ku sameeyay taariikh cajiib ah, waxa uu ku guulaystay koob iyo bilado shakhsi ah, koox iyo mid qaranba. Leo intuu ku guda jiray safarkiisa kubadda cagta waxa uu la kulmay habeene iftiin badan iyo habeene mugdi ah. Leo waxa uu abaalmarin shakhsi ahaan iyo kooxaba ku guulaystay, ma ahan mid la soo koobi karo. cunugii qaba cudurkii waxa uu noqday mid ku guulaystay jaa'isada Ballon d'Or 7 jeer, 3 jeer midka ugu wanaagsan FIFA, 3 jeer midka ugu wanaagsan qaaradda Yurub, wuxuuna ku guulaystay sanadii 2022 koobkii adduun ee ka dhacay dalka Qatar. cashirka aan ka baran karno sheekada Leo ayaa ah in mar walba oo ay tahay qof leh riyo inay diyaar u noqoto inaad la kulmayso xaalado badan oo mid caafimaad, mid dhaqaale iyo mid diidmo ah oo ay dadka ku diidaan marka u baahan tahay iyagoo kuu fiirinayo xaaladda aad markaas ku sugan tahay. fariinta muuqaalka maanta waa inaad u dagaalantaa riyadaada si aad u rumayso. waa inaad wax walba u hurtaa riyadaada, maskax iyo maal mida awoodde.